aadan cabdirashiid aadan riyo iyo maaida cabdulaahi cali waxay ahaayeen lamaane markii hore ku midoobay nolosha waxa ay muddo xiriir ay soo wadeen ugu dambeyn ay ka mir dhaliyeen xiriirkii jacaylka ay u bedeleen inay yagleelaan guri ay ku wada nastaan isla markaana ay gardaadiyaan ubad ay wadajir u dhaleen muddo kadib waxaa soo xumaaday xiriirkii jacaylka ahaa waxaana halkaasi kusoo gabagaboobay wadajirkii iyo farxaddii halkaasi ka jiray aadan cabdirashiid aadan riyo waxa uu maalmihii u dambeeyay la kulmayay dhaliisha iyo eedda ay hawada u soo marinayso maaida cabdulaahi cali oo ku sugan dalka Uganda gaar ahaan magaalada caasimadda ee Kampala haddaba aadan ayaa waxaa lagu eedeeyay in ubadkii ay isku dhaleen labadooda ay uu ka qaatay isla markaana si qasab ah ooga qaatay haatan aysan haysan wax ubad ah ay waqti iyo farxad la qaadato haddaba aadan ayaa ka sheekeynaya eedda ay u jeedisay xaaskiisii hore maaida cabdulaahi cali gabadhan walaashay waxay u eedeysay in aan gabadha xoog uga qaatay waa been waxay u eedeysay in aan xumaan kasta sameeyo waa been waxay qarash iyo waqti iyo wax kasta ku bixisay in ay sumcad disho waa been gabadhan ay leedahay waa liga soo xoogay xoogaa liga soo qaaday waa been haddaba maaida cabdulaahi cali markii ay kala tageen maxay samaysay iyadu waa xaflad ay ugu magac dartay furiinkii iyo sidoo kale bye bye ay ugu tala gashay inay u sameyso ama ay kula dabaaldegto asxaabteeda balse arrintan ayaa yaab iyo ama kaag waxay ku noqotay dadkii iyada markaasi yaqiinay aadan ayaa mar kale iska fogeynaya eedda ay u soo jeedisay xaaskiisii hore maaida cabdulaahi cali oo ah in qasab ay uga qaatay ilmihii ay dhashay waxa uu sidoo kale aadan uu carabka ku dhuftay in iyada ay go'aansatay heshiis ay ku wada galeenna uu ilmaha sidaasi uga qaatay waxa uuna eedda inta badan dusha ka saaray hooyadeed oo uu gurigaasi ka dhismi waayey waxa uu sidoo kale aadan tilmaamay in gurigaasi uu burburo ay qayb ka ahayd safar been oo dhanka dibadda ah oo loo sheegay gabadhaas inay ugu aadi doonto dalka dibaddiisa ugu dambeyntiina ay haatan ay ku sugan tahay magaalada Kampala dadka qaar ayaa arrintan u sababeeya markii ay baraha bulshada ka soo dhex muuqatay stress ama buuq iyada maskaxdeeda ku furmay assalaamu calaykum magacaygu aadan cabdirashiid sheekh axmed ku magac dheer aadan riyo ku isticmaala baraha bulshada boqorka muqdisho maanta waxaa halkaa u soo fariistay in Soomaali badan dadyow badan in aan la wadaago arrin maalmahan baraha bulshada loogu hadal haynta badnaa oo ahayd in maaida cabdulaahi cali aan xoog kaga qaatay gabadh ee ayadu dhashay waxaan rabaa arrintaas oo faahfaahsan inaan si fiican fahmi kartaan xaqiiqada ku ogaa kartaan inaan u faahfaahiyo maaida kaligeed gabadha ma dhalin gabadha waa wada dhalnay abaa kaliya gabadha ma dhalin gabadha waa naga dhaxaysaa sidoo kale u sheegaa dhammaan dadka Soomaaliyeed intii aan aqoontaba u lahayn shakhsiyadeeda aadan ahaan ee habaaray ama wax iga sheegay qaldan intiinan xaggayga cafis baa ka tihiin sababtoo ah aqoon la'aan ay idin geenaysa gabadhan ay leedahay waa liga soo xoogay xoogaa liga soo qaaday waa been meesha lagu soo qaadayo ma joogin laakiin gabadheeda alxamdulillah waa haystaa xoogna cid wax uga soo qaata male waxaa fariista odayaal waxaa fariista tol iyo tol waxay ku heshiiyeen in nolosha ay ku kala baxaan annagana gabadhoodii u furno meherkooda siino anna gabadheeda laysiiyo waxa ahay ninka kaliya ee maanta u furay naag uu qabo gurigeyga ku qab
haddii kale ii fur adduunka kama jirto hooyadeed igu hajamto haddii aad gurigeyga gabadheeda ku qabi weysid ama aadan ku qabaynin inaa gabadha ii furaysid waxay ii sheegtay haddii aan meel kala dego in gabadhaasi aysan weligeed aanan arkaynin halkaasna ay iga furanayso waxaa in badan aniga dadkayga waalidkayga xataa awowgay dad badan oo tolkay inta u tageen la fariisteen u sheegeen inaan dhalinyaro nahay shalay aan dhaqmaynay maantana aan u soo hoosgalnay in waalidnimo haddii aan u fahmay inaan meesha ay igu qasbeeda aan ku noolaan karin in nolosheena aan u madax bannaano hal sana meel gaara wada deganeen 4 bilood ay dhahday gabadha umasha ku jirto aan baxnaanina aan meel wada deganeen waan wada dhaqmi weynay gabadhii waxaan go'aansaday inaan guuro waxaa la gaaray haddii aad guurtid gabadheedu waa ii furee in la dhaho aniga mar badan adkaystay oo adkayso waayay maama waxaa dhahay maalin kasta gabadhaadii ay ugu haysataa anna teeda faraq ku haysataa haddii gabadhaadii luul iyo dahab ku tahay anna teeda dhaman ay tahay haddii maalin kasta buuq iyo waalidnimo xushmad jirin waalidnimo jirin maalin kasta faraj ku taag tahay hadaan gabadhaada waa ku furaa anna gabadheeda ay siinay saas ku kala baxeena waxay dhahay gabadheeda 3 dalaaqad ay u furaysaa 30 gram oo dahabana miiska ay saaraysaa gabadhaada midgaanta oo garaacdaana faraqaan in saaraa halkaas meesha ratiin ciri dhul kala dhaca ma idin baahnin mana u baahan doono waxa marqaati ka waalidkii dhalay waxa marqaati ka waalidkeed waxa wada fadhiyo odayaal iyo tolkii wax wada kala qaatay markay waayeen wada kale oo lagu heshiyo waxay go'aansadeen in gabadhoodii u furo hooyadeed waxay iga cusubtay in 3 dalaaqo hal mar gabadhi ku furo gabadheedina 30 gram oo dahab ah u raaciyo si gabadheeda aan u helo waxay ahaataba gabadhii waan kala baxnay waa furay gabadheedii waa qaatay